wala wada socona dhibaatada jirta iyo xadgudubka lagu hayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo diinteena oo reer galbeedka iyo warbaahintooda iyo sufahadoodu ay ku hayaan dawladahoodii iyo madaxdooduna ay markay ugu yar tahay ama ku taageersan yihiin ama ay tahay ma samaynin kumana talinin laakiin ma xumaynin waa ka ugu roon kama xumaanin in anbiyada ilaahay iyo rasuusha lagu xadgudbo wax cusub maaha maalintii ilaahay rasuusha soo diray xaq iyo baatilkuna laga tanka bilaabeen ilaa qiyaamadu ka imaanayso cayda iyo aflagaadadaasi waana jirtay waana jiri doonta bal xaq jirnimada reer galbeedka qaybo kamida waxa kamida maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegta waa xadhig in la yiraahdo mas'ala dhacdo un xaqiiqo min xaqaa'iq dunya kamida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yiraahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaan nabiyullaahi muhammad oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatul kalaam in noqotiyo xorriyatul qawl ومحتن كله حرية القول نقوم ويدي وأمرك اللي قدونه ميديا يبلشدة يوحردمي وحي أنا يدون إن ده هو يكلابطه نكرر قلبي ده وحجيسته ملف كيس على بعضه يا مالنو نختار متجي دد بقول له هو والله بري بقول نختار كلا كل ما أديك كوالني هدو وحدي له ومسلم تروريستوها هدا هدو عليه وكصابحه ماشي وكصابحه عيد فايل كيس يدبه ما يكتو إذن والله تشوفي أنا بنام بين لنا لكن تاسي وحي يسبدلي كرتا مركز هذا هذا الشو مركز هذا معتقد كاجي الدين تاد الدفاعته مركز هذا صاب بندكتو نبي محمد وحوها عليه الصلاة والسلام لكن هذا ضبح شلون يسوي سلادي تلو النبي مياد ما دودي كريس محات هذا هذا أنا ضب النبي جاي قرنين دم الدفاع كريس وأمرك الله بعض هذا أنا هذيك قلبي جاي كوينين دتك كلو وينك كما داعين كريس لذلك يا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحيري لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه إن أوجر جارتان وأد وينيسان يا رسولك إلهي إنكم صادق وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قفكين إيمان مهل من جار إلى وأن يجتشع الله والدك يا أولادي سيدت كودن محبة قلبك وين تعالى إن والدك كتشعشها إن أهلك عرورت هذا كتشعشها إن النفط هذا كتشعشها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قلبك وين لقاه لا أيها المسلم حقوق ذو كل يا لسانك يا عربك وحويه إلهي باين ورفعنا لك ذكرك ذكرك يا حسك عن كرقاتني قتادة وحير رحمه الله آية معناه وحويان رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة نبي حسكي سيد ذكرك أيا إلهي كرقاتي الدنيا آخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما ترى قف خطبينيا يقف صلاة كنيا يقف أدميا إلا وحا سوق لي توحيدك توحيدك يا سوق لي توحيدك لو كوبيه لا إله إلا الله محمد رسول الله تداسا إلهي سبحانه وتعالى شرفتي سوكر قاعد حقوق ذو كل يا وحويان قفك مسلم كجوارح دي سي حمنه سا إنه جهدك يسبحيه كبحي النبي الدفاعي صلى الله عليه وسلم لسان كيسي عرب كيسي إنه النبي محمد كالدفاع مال كيس النبي إنه كدفاع حمنه سينه كدفاعه ونفتيسا ودق النفط النبي كدفاع صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك بي صحابة أنصار نبي مركب ليلة العقبة ولكل مي ويشيسك ولقل يا بيعضة أي وحي كدارتين إن النبي الدفاعيان وأي كإلالنا يان وحكسته سيدي أو إلاليان وحويان أهل كودة إيا النفتو دي المهود أو إلاليان إن أو دفاعي سيدي بين كدب يان أو دفاع
gaaladu waxay doonayaan nuurkaas sida u iftiimaya barakada iyo khayrka weyn in ay damiyaan bay rabaan yuriiduuna liyutfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun ina yarba intuu xaggaa istaagay ayuu leeyahay ceedceeddaas ayaan afuufi oon sidaa ku demin miyuu demin karaa nebi maxamed ayaa demin karaya nuurka alla uu soo diray ayaa baktin karaya sala allahu calayhi wasalam waxay wax ka sheegeen fii shakhsiyatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddiis sharaftiisa cirdigiisa karaamadiisa calayhi الsalaatu wassalaam waxay wax ka sheegeen diintiisa nebiga risaaladdu alla u soo dhiibay dacwadiis ayay wax ka sheegeen fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah hooyi iyo aabbaan kugu furanaynaa rasuulkii ilaahayow laakiin ilaahay baa nebigiisa u sheegaya ilaahay waxa uu nebigiisa ku leeyahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira nebi allow adigu uma horaysid ambiyaadii kaa horaysay rasushii kaa horaysay gebi cadow bay lahaayeen nebi walba cadow buu leeyahay oo mujrimiinta ka mida ilaahay baana kuu kaalmay nebi allow nabigeenna sal alla alay wasalam aflagaadayntii hore iyo tan lagu samaynayo midna wax yeeli maayo maxaa yeele rabbigii baa doortay oo rabbigii baa qadariyey oo rabbigii baa kor yeelay oo inta dhulka joogtiya inta kor jirtaba isagay ammaanayaan oo ku sallinayaan sida rabbigeen qur-aanka kariimka inoogu sheegay allah baa ammaanaya oo malaa'igta dhexdeeda ammaanta nebi maxamed ku haya nin alla ammaantiisa haya gaal buuryo qab ah oo najis ah caydiisu maxay yeeli waay malaa'igta rabbi baa tabaaraka wa tacaala ku sallinayso u ducaynaysa maxay yeeli kartaa gaal hadal xun oo uu sameeyey mu'miniinta intaa ammaanaya bilyan iyo nus muslimiintoo caalamka maanta ku nool ayaa ku sallinaysa oo u ducaynaysa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ammaanaysoo jecel salawaatu rabbi wasalaamu calayh gaal xun warkiisu muxuu yeeli waya marka hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay aadna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad siladayaan dadku ku garanin soocankaa maaha yaan dadku ku garanin ee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wassalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynayn oo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.